waayo qofka wax haysta isagoo way fududayn wax iska bixiyo laakiin aad marka meel adag ka soo saartid baasha lacagta la wada jecel yahay ilaahay uu ku sii kordhinay uu ku farxayo ilaahay wuxuu ku sheegay quraankiisa la in shakartum la azidannakum. Hello, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello Ramadan Mubarak. I hope you're all doing well. I hope you're having a great time with your family, with your friends this Ramadan. Alhamdulillah. Ilaahay ba mahad iska leeyahay soo gaarsiin Ramadaantan. Dad fara badan may soo gaarin Ramadaantan. dad fara badan in yar ka horbeynteen dad fara badan Ramadaantan way nala joogeen tan inala ma joogan. Alhamdulillah. Marka maanta insha Allah waxaan ka hadli doonaa waxyaabo improve yourself. Sidee baa uga faa'iideysan kartaa Ramadaantan? adigoo yara baranaya kelmadeero cusub English sidoo kale Iqra College kaliya English ma dhigno wax ma dhigno sidoo kale ardayda waan dhiiri gelina we motivate the students waxaan isku daynaa ardayda inay noloshooda wax ka bedeli karaan iyagoo isticmaalaya luqadda Englishka iyo luqadaha kale iyo waxyaabaha kale aan dhignaba marka today we're going to be learning maxaad u baahan tahay sidee baad u horumarin kartaa naftaada bishan Ramadaantan kaliya maaha iyo bilaha ku xiga iyo sanadka ilaa Ramadaanka kale intuu Ilaahay naga gaarsiinayo marka today we're going to be looking at some things that we can do this Ramadan so toogu horeysa wax weeyaan give gratitude waxaad bixisaa mahadnaq yaa loo mahadnaqayaa Ilaahay alxamdulillah waxaad ku mahadnaqaysaa wax kasta caafimaadka inaad soo gaadho waxa laga yaabaa saaxiibka walaalaha dad aad garanayso inoo joogay hore tan in Ramadaantan lama joogan alxamdulillah markastoo mahadnaqdidna Ilaahay uu ku sii kordhinaya Ilaahay wuxuu ku sheegay quraankiisa la in shakartum la azidannakum hadii aad mahadnaqdid waan idin sii kordhinaya marka mararka qaar waxa laga yaabaa inaad waxba ma haysto maxaan ku mahadnaqaan waxba ma haystabe laakiin waxa Ilaahay sidoo kale wuxuu wa fi anfusikum naftiina eegba caafimaadka eegba indhaha Ilaahay ku sii eegba dhagaha Ilaahay ku sii eegba gacmahaaga eegba bal wuxuu Ilaahay ku siiyay hada tira waxba ma haysto waxa doonaysid waxaad haystid baa ka badanba marka xataa anugu ma meehi sheekad laakiin amba waxaan ku dadaalayna mahadnaqa farabadiyo sidoo iigu sii siyaada wax inta yaraan haysto waxaan haysto wax far badan baan haysta actually marka give gratitude. Number 2 time management waa halkay dadku ku kala hadheen waqtigaaga inaad qorshaysid inaad ka bilowdid bishan iyo bilaha soo socda kaliya maaha bishan kaliya waqtigaaga hagaajisid bilaha soo socdana sidoo kale inaad hagaajisid marka time management waqtiga dadka qaar baa oranaya hurdadii baa ila tagtay dadka qaar baa oranaya suxuurtii baa iga tagtay maxaaban ka soo meeyaa xalay ma waa suxuuranba marka ma shaqeynayso wax loo baahnaa waqtiga hagaajisatid waqtiga suxuurta u kacsid waqtiga tukanaysid taraawixda inaad tukano weeyaan gidigeena wada tukano weeyaan salaadaha ina badino quraan akhriskayna badino inaan ka faa'iideysano waqtigan waayo we don't know ina bisha Ramadaanta dambe anu ma garanayo adu ma garanaysaa Ramadaanta dambe gaari doono marka time management wax weeyaan qorsheynta waqtiga qorsheysano inagoo dhan aniga I'm not perfect ma kuma fiicni waqtiga qorsheynta laakiin waxaan isku daynaa ka faa'iideysto bishan iyo bilaha kaleba ilaa inta ka gaarino Ramadaanta dambe insha Allah marka number 2 waxaan build positive habits ina dhistid habits waxweeyaan waa wax caadooyin wanaagsan oo bishan iyo bilaha soo socda inaad dhistid waliba bishan kaga faa'iideysid caadooyin wanaagsan maxaa kamid ah inaad waqti u samaysatid quraan badan inaad akhrisid oo ka faa'iideysid bishan sidoo kale inaad waxyaabo badan salaada inaad badisid inaad wax akhris badisid inaad buugaag cusub baratid inaad casharo cusub baratid inaad luqadda Englishka baratid inaad luqado fara badan baratid marka caadooyin wanaagsan oo ku anfici doona mustaqbalka dhow iyo mustaqbalka fogba inaad dhisatid maxaa kaloo kamid waxa laga yaabaa xirfad baa u baahan tahay inaad xirfad dhigatid sida uga faa'iideysid Ramadaanta iyo bilaha ka dambeeyaba inaad ka faa'iideysid waqtigan yar in haysano alxamdulillah inagu waxaan joognaa dal islaama dal muslima baan joognaa waan ka faa'iideysan karnaa waqtigan fasaxyo fara badan baan heli karnaa waxa laga yaabaa iskuulada waa la fasaxaya shaqooyinka meelaha qaar 10ka dambe 15ka dambe waa la fasaxaya marka alxamdulillah dad fara badan ma haystaan fursadan oo kale marka dalka muslimka joogtid marka ka soo xigta give charity sadaqasi dadka qaar baa oranaya waxba ma haystabe maxaa sadaqasi yaabade waxba ma haystid laakiin waxa la yiri ma ogtahay waxa la yiri markaadan waxba haysanba ayaaba ka fiican bayna wax bixisidba waayo qofka wax haysta isagoo way fududayn wax iska bixiyo laakiin aad marka meel adag ka soo saartid baasha lacagta la wada jecel yahay marka meel adag ka soo saartid Ilaahay uu ku sii kordhinay uu ku farxay wuxuu oranay adoonkaygi waxaan siiyay wax yar wixii yaraaba waliba wax ka bixiya anigu wax ii huray inagoo ku darina intentionska niyadda wanaagsan inagoo ku darina oo dadka tusaynin aan ka qarino sadaqada waxay ka si fiican tahay marka ka qarsid dadka
ood qarisid oo si qarsoon u siisid waxa ugu dambaysa forgive others tan baa Soomaalida dhan ku adag Soomaalida dhan tan baa ku adag waxa oranayaa kii Soomaha kii waxa igu sameeyay berigi wallahi na mid inta la cafinayn damee walaalka iska cafi wallahi na mid cafinayn hatta anigu wasaas sameeyay imika waxaan ku xanaaqsanahay habla asxaabnahay waxaan doonaynaa iska cafiyo insha Allah aniga ii fiicanta waa nafisayaaba kama ba fikirayba marka cafisku ilaahay baan ka rabnaa cafis deewayna iska cafina dad kale deeway hadaa ilaahay wax ka doonaysid wayna dadka waxa u qabatid marka wallahi way nagu adagtay hadaan nahay dadka Soomaalida marka forgive others bishan waa bishii cafiska bishan waa bishii ilaahay baa cafis ka rabnaa wayna dadka cafina sidoo ilaahayna inoogu fududeeyo cafiska marka alxamdulillah waxaan isku rajaynaynaa gidigeen waxaan idin rajaynaynaa ka faa'iideysano bishan anuguna ka faa'iideystay inaan ka wada faa'iideysano marka waxaan rajaynaynaa wada dabaqdaan haddaad bani aadan bana waa iska yar caajisa laakiin waxaan isku daydinaa qaar ka mid ah dabaq assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh